ku soco. anigoo gabar yar ah oo guriga hooyaday jooga gabar iskuul dhigataan ahaa saan iskuulku dhiganaya gabar waxaa iska ahaa afgaaban oo edab laho iskuulkeeda tagto markay kasoo baxdo gurigeeda kusoo laabato maalin maalmaha ka mid baa wiilal intay noo imaadeen iskuulka markaan kasoo baxnay anagoo gabdhe waxay noogu dhaheen soo bax beerahan u soconaya aan idin wadnay camal ani marka taan ku dhahay maya ma idin raaci karo oo gurigaan rabaa inaan aado waalidiinteyda iima ogolo inaan socdo marka gurigaan ku laabanaya shaashadan inoo garaaca bliis idinkoo mahadsan. gurigaas kaga soo laabtay maalinta xigtay wiil baa igu dhahay shalay beerta maxaa noogu raaci weysayoo meel qurux badan bay aheedo maasha allah waa tagnayo meesha cabaar baan joobi kusoo qaadanayo anna waxaan ku dhahay aniga waa cabsadaayo meelahaas ma tago waalidiinteydaan ka cabsadaa hal isbuuc markay kasoo wareegtay maalin maalmaha ka mid ah waxaa la duminayay sar ay dowladda meel dhul ay leedahay lagu dhisayaa waxaa la dhahay waa la duminaa oo cagafcagafaa la geli dadkii oo dhan meesha isugu tageenoo waxaa la daawanayay sarta say u qurux badan tahay markaas dhowley la dhisayo sidii loo duduminayo dadkii markay fiirinayeen sarta meesha laga duduminayay ninkoo meeshaan dhinacaanuu fiiriyaa oo anigu igu dhegan yahay dhukure naga daade ubax walaalo dhukure ubax naga daa walaalo ninkan dadka markay dhinacan fiiriyaan oo meesha sarta laga duminayo ninkan wuxuu fiiriyaa dhinacan kale geesgees buu u taagan yahay anigu isku kay dhejinaya ma dadkii meesha taagan musu kaa dhejinaya dadkii oo meesha taagan waa la wada mashquulsan yahay oo horeyaa la wada fiiriyaa isagana anigu igu mashquulsan yahay aniga waan dareemayoo waxbaan dareemayoo markaan hoos u fiiriyo waxaaba arkay ammaanka oo furan qori kugu soo jeedaa aniga gabar baa dhinacayga taagneeda waxaan ku dhahay wax yar iga sikoo ninkii bahal dharbaaxshaa waxaan ku dhuftay indhaha bartooda waa dharbaaxda waa dharbaaxi ninkii waa ka duuliyey wixii shaydaamadii saarnaa baan ka ceeriyey gabadhaasi dharbaaxada ma ku saxsanay mise ku khaldanayd oo ku saxsantay mise ku khaldan tahay markii aan dharbaaxsho ku dhuftay waay tahay dadkii oo dhan iwada soo wada fiiriyeen oo dhahay maxaa jiro maxaa qaldan markaasaan ku dhahay fiiriya ninkan ammaankiisa hala fiiriyo ammaankiisa hala fiiriyo qasnadaa u furan wax qaldan buu sameynaya waxaan ku dhahay saqajaanna wuu yahay ninkii wax ku qoslo wax dharbaaxsho ku dhufto wax caayo ay kala noqdeen dadkii oo dhan asagii wuu yaraadayo wax uu ku hadlo uu garan waay xitaa gacan uu dhaqaajin waay sidaa lagu kala tagay waa qof walba dantiisuu raacday aniga iskuulkayga aan iska tagaa gurigayga aan iska imaadaa maalin maalimaha ka mid anigoo luuq kasoo baxayo wado yaroo baawurtana ay mari karaan anoo marayo ninkii waxaan arkay qof gadaal looga imaaday camal qoorta le hal mar lii qabtay qoorta luusaan ii qabtay nab nin kalaa la socday ninkan waaba la isaarsaday aniga dhan waa lagu qaatay waa laygu qaatay tiim qaniya ku qaatay adkaatay tiim qaniyo balaayada hesha ninkii baawuruu watay ninkii gadaaluu ila fariistayoo anigu i qabtay ninkii kalena baawurkuu waday meel buu igeeyey oo magaalada aad ugu fogo meel banaan ahoo guri xoogaa aa u malaysid guri waqti hore adig guri dad ayna joogin oo cidlo camal oo xoogaa wasaqna uu leeyaha la igeey gurigaa lagula tegay guri baa laila tegay oo 7 maalin baa gurigaas laigu hayay oo dharbaaxshadii aan ku dhuftay la igu guday 50 dharbaaxsho in la igu dhufto i ka badan 7 cisho ku haystay 7 cisho xuduudu ku geeyay markaa maalintii 7aad ninku intuu i imaaday uu gacmaha iga furay lugaha iga furayba wuxuu igu dhahay waa bixi kartaa hadda asagoo iyagoo ilkiina ku dhaceen anigii waan soo baxay magaalada meesha iga jirta xitaa maba aqaaniba
dad soo socda oo waxaan arkay baadiyaha ka imaaday oo magaalada u socdo dadkiiaan soo raacay magaaladiiaan saas ku imaaday gurigeena markaa imaaday hooyadayda iyo walaalahayga waxaanba ka dhaadhicin waayay ninkaas inuu xoog igu watay oo waxaa laygu dhahay ninka adaa raacay naaya adigaa raacay oo ninka adigaa rabay oo adaa saan yeelayoo wir ka dhaadhici anigii oytin garaacisaa la iigu sii daray oo kuwa walaalahayga garaacis iigu sii dareen anigii aad u niyajabsanoo waxaan sameeyey garan la gabar saaxiibteeda aheedoo iskuulkaan isla dhigan jirnay maamada u imaaday waxay ku dhahday ninkaas 2 jeer anugu markuu iga hor imaaday wuxuu igu dhahay saaxiibtaada taan ku dhiga waa arki doontiin haddaan ka aarsanin oo ceeb aan soo dhex istaajin ninba ma ihi marka inuus waxaan ku sameeyey waa laga yaaba aniga waa aaminsanahay 100% ay ku dhahday maamadii markii saas lagu dhahay waxay dhahday ninkan la sheegaya aan wax weydiinay horta aan soo qabta wiilkii la socday baa lasoo qabtay wiilkii wuxuu ku dhahay aniga waxaas iigama sheekayn wuxuu igu dhahay gabar baan jecel naga dhexeeyey gabadhii markaan rabo inaan guursado bay xoogaa igu xumaysay marka hadda xoogaan rabaa inaan ku wato oo aan soo mehersado inaa i caawisid ayaan rabaa ayuu igu dhahay saasaanu ku caabiyo ku dhahay ninkii baa lasoo raadiyo 2 isbuuc 3 isbuuca la raadinayay nabaa lasoo siiyey nab markii lasoo siiyey gogashaa lasugu imaaday asagana dadkiisaa imaaday anigana dadkaygaa fariistay wuxuu dhahay ninkaas qaladkaas waa galay waana ka xumahay maadaama gabadhii aan xumeeyey waxaan diyaar u ahay inaan guursado gabadhii maadaama qaniyada sii wada aan guursadaa buuri gabadhii inaan guursadaa diyaar u ahay inaan xaal mariyo ayaan diyaar u ahay ninkaa ma guursan lahaydeen ha iyo maya ninkaa ilkaha kaa daadiyey ma guursan lahaydeen ninkii waa dadkayga waa tee isku laabteen oo isku dhaheen waa maadaama gabadhii saan la yeelay waa la kufsaday magaaladii oo dhan ay noogu jirto inaan ninkii aan u guurino soo sharafteena kuma jirto haabaa lagu soo tashtay anigoo layla tashanin oo la weydiinin baa ninkii lagu dhahay gacanta laisgeliyo waxaa la dhahay okay las dhahay ninkii waa lagu siiyey ninkii baa la isiiyey maamada guriga imaadee waxay ugu dhahday anaga waa kulama tashanin kulamana tashan karno oo xaalad aan kugula tashan lama joogo ninkaas maadaama asagoo ku xumeeyey xaaladaada waxay tahay lama oga soo si aad sharaftaada adigana sharafaa ugu noolaatid annagana aan ugu noolaano waa inaad ninkaas guursataa reerkaas ma saxsan yihin mise khaldan way saxsan yihin waa qosolka way qaldan yihin waa oohinta ninkii farxumeeyey in inanta la siiyo waa qalad waa oohinta waa sax waa qosolka anigii ninka waxaan u necbahay adduunka inta socoto oo luga bani aadan ah asagaan u necbahay ninkii ku xumeeyey ninkii u xumeeyey oo si qaabdarada badan iila dhaqmay oo aragiisaan adduunka u necbahay anigii waxaan ku fikiray ninkan intii lagu guurin lahaa oo guri lagu geen lahaa ma iska dhimatid oo wejigiisa kaasoo horbixi lahaa haddana shaydaankii baan iska naaray waxaan isdhahay niyadaada hagelin inaad isdishid aakhira waxba kuuma jiro qof muslimaa tahay wixii kugu dhacay way kugu dhaceen tanna waa ka gudbi doontaa waa inaad qof adag noqotaa waa inaad waxaan sidii aa ugu bixi lahayd aa ku dhaqaaqdaa ninkii baa la ii guurinayaa oo arooskii baa la diyaarinayaa waa arooskiyaa la dhameeyo oo ninkii gurigiisaa la igey ninka gurigiis markii la geeyo runtii aniga waa iska socdaa oo guriga waa iska tagay laakiin qof meed socdo camala ahay niyad umahay aad baan u niyad jabsanahay ilantayda ma istaagto oo waa iska soo socotaa gurigii markii la igeeyey ninkii isla seem way mar walba hal hadal xitaa ma dhaafsan jirin lama hadlo wax ma weydiiyo meeshaasaa iska fadhiya asagaa ii imaado oo igu dhaho maxaa meeshaan la fadhisaa hadda ma ogtahay inaa xaaskayga tahay maalintii ma ogta maalin kasto ayuu isoo xasuusan jiray inaa maalin aan dharbaaxay oo dadka dhexdooda aan ku dharbaaxay markaasuu dharbaaxsho intii ugu dhufto wuxuu igu dhahaa ma xasuusataa tan isagoo ku qabo ku dharbaaxaya
isagoo i qabo haa inaa lillahi wa inaa raajicuun bal faamilkaasi waxa dhibaatay inantaa u geystaan ka waran hay oohintaa soo dirna naga daayo cuslaanaya hay anigii noloshii baa igu adkaatay oo wax aan samaynayo malaha ninkii bahdil caytin wax uu igu samaynayn malaha waa nin balwadlow ahaa habeenkii saqdhexuu imaanaya markaasaa aad buu ii bahdili jiray oo i caan jirayo waxaan kugu sameeyey waa ogtahay saan kuu galay waa ogtahay haddana waa kana intaa ii jiiftaayo anoo ku rabin anoo ku danaynayn ayaa meeshaan ii jiiftaa iska baxno meeshaan maxaa iigu fadhisaa aniga inaan kaa aarsada len rabay ma ogiya inaan mustaqbal kaa dhigtay oo ilmahayga ah hooyadood aad noqotid maba kaa rabinba aniga tale meeshaan ka bilaabayo ma aqaani lacag ma haystay oo 100 jeer aan ku fikiray inaan wadanka oo dhan iskaga tago laakiin way ii suurtageli weysayoo qarash aan ku baxo aan bas xitaa ku raaca maba haystiba gurigiyaa sidii ku joogay anigoo iska niyad jabsan oo aad u niyad jabsan runtii aan ur yeeshay haddana xuduudda markaa qasabka kugu geeya miyaa qasab iyo markii hore 7 maalin uu i haystay iyo hadda seem ayay ii tahay aniga isku mid marka xuduudda boolis baa ku ilaaliya mise military wuxuu yahay xitaa ma ogi aniga wuxuu yahay maba aqaano dhar cadan weeye inuu wax uu yahay unbaa ogahay laakiin wuxuu yahay ma ogi intii lagu dhex riday neeftu isku celinaya camal aan ahayd waxay sheekay sidaas ay ku socoto aniga uuraa yeeshay uur markaan yeeshay inaan uur lahaa ogaaday wuxuu igu dhahay meeshaan ha igu dhaline guriga hooyadaa tag markii waqtigayga la gaaray aniga waan soo baxay guriga hooyaday imaaday cunugii waan dhalay markaan cunugii dhalay wuu iga saqiiray markuu igu saqiiray runtii aniga waaba ku farxay saqiir aakhir inuu noqdo oo uu meeshaas ku laabto ayaan ku farxay acuud billaahi min ashaytaan ilmahaagu inuu saqiiro ma ku farxi lahaydeen ilmahaagii oo saqiiray ma ku farxi lahaydeen hay anigii waxaan ku dhahay marka hooyo waxaan rabaa inaan ninkan aan iska furo oo aan iskaga dhaafo ninkan aad baa u nacbahay noloshiisana kuma faraxsani idinkana waa i qasabteen meeshaasaa xoog igu geyseen hadda wuu iguursaday oo ceeb idinma raacin waxaan rabaa hadda inaa igu caawisid ninkan inaan ka tago hooyaday igu dhahday maxaa sheegaysaa see ninka uga tagaysaa ninka waaba ninku ku qabe waa muwaalan tahay waxaas way dhammaadeen gurigaa inaad dhaqatidaan rabaa hooyadayda waxaan ka hadlaa dareenkeyga iyo fiilinkeyga maba dareemaysaba waxay leedahay gurigaaga dhaqo oo guri naag adag iska dhig gurigaaga joog wixii hore iska iloow hadda waa ninkaaga xalaasha oo ku qabo anigana ninkii waa ii cuntumi waaye oo dhuunta waa ii mari waaye noloshayda cariiri iyo waxay ku jirtaa rafaad iyo ciqaab badan ayaan dareemayaa agtiis markaan joogo haddana gurigaan ku laabtay maadaama hooyaday sidaas ay igu dhahday gurigaan ku laabtay gurigii markaan ku laabtay sidii caadada ahayd sideena ayaan iskaga wadanay sheekadii see u socotay haddana maalin maalmaha ka mid ayuu wuxuu igu dhahay waxaan rabaa inaan ku furo aa iga tagtid hay furninkaa ma ku farxi lahaydeen ma ku farxi anigoo guriga joogo wuxuu igu dhahay aniga naag kalaan jeclaaday waxaan rabaa naagtaas inaan guursado waxaan rabaa adigana inaan ku furo runtii markuu hadalkaas igu dhahay waxaa u malaysaa leer oo jannada kasoo baxda inay dhex martay waxaan ku dhahay haddaad ifuraysid kheyr waaye ifur intaan kula joogay maalinta igu farxad badneed waayaan ku dhahay oo aad hadal aan ku farxo aa igu dhahdid waan ku farxi lahaa qosolka kuma farxeen waa oohinta qaar balle kumaanaan farxeen waa ku farxi lahaa qosolka hay ninkii markuu arkay sidaan u rabo furitaankiisa wootuu ka booday oo igu dhahay maba ku furaayo inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajicuun markuu ku arkay inaad rabtuu diiday furitaankiiba
anigii waan fadhiyo markuu igu dhahay waan ku furaya waan soo istaagay oo waxaa noqday qof habiya wixii niyadayda ku jiray aan ku qarin jiray aan soo saaray ninkii saan intuu ii fiiriyo igu dhahay ma nin kala diyaar ku ah waaba ka tala baxay ka waran gabadhan waa guursanayaa adigana noloshaana ku jiraysaa cimrigaaga inta ka dhiman inaa lillahi wa inaa raajicuun waan ka xumahay intaad dooratay waan faraxsannahay laydinmaba furaayaba guryihiina jooga anigii haddana mar kale iyo niyad jab kale ayaan kasii qaaday anigii marka waxaan go-aansaday noloshan inaanu ku jiri karino oo dhib ay igu tahay soo ninkan inaan xoogaasa sabto aan isku jilciyo si aan uga baxo noloshan markii hore hadal ma dhihi jirin uma qosli jirin hadduu ila hadlo wuxuu i weydiiyaan siin jiray adi in yar oo naxariis ama hindho naxariis laguma fiirin jirin oo waxa qof iska meed socdaam iska ahaaba aniga marka waxaan is dhahay maadaama ninkan uu haddana kuga adkeeyey uuna ogaaday inaad furiinkiisa aad rabtid uuna ku furi rabin waa inaad xoogaa iska dhigtaa qof normal noloshiisa ku faraxsan oo noloshiisa iska wato kaartaad degtay markan kaartaan degay haa adkaatay hadday adkaatay marka dumarkuna hadday kugu tashadaanay maskaxda wareejiyaan oo kuwaalaya ninkaas waxa ku dhaca dhegeysta marka ina mari ina kaxee ani marka waxaan bilaabay maanta markuu maqnaa gurigiiaan hagaajiyey gurigiiaan carfiyey cunto qurux badanaa diyaariyey dhar qurux badanaa xirtay ninkii markuu soo galay guriguu saan u fiiriyey aniguu saan ii fiiriyey markaasuu igu dhahay yaa jooga guriga aniga lee joogo guriga yaa imaadayoo macnaha maxaa qaldan aniga lee joogo guriga adiga le isku kaa diyaariyey markaasuu igu qoslay uu la yaabay wayna isku sii diyaarisay wuu la yaabay haa wuxuu igu dhahay ciyaar maa bilowday haddana ma laisku ciyaaraya hore duri aad wax ku karisad ku joogi jirtay hadda laakiin waa is diyaarisay 10 maalin xitaa iskama bedeli jirin dirac 10 maalin xitaa iskama bedeli jirin ma odhan jirin miya xitaa 10 maalin hal maalinaa meertaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكار باكو دعوة وكاسة وكشرتي به شير باكو دش ninkii markuu soo fariistay cuntadii aan siiyey markaasuu igu dhahay cuntada sun ma iigu soo dartay oo inaa idishid maa rabtaa oo marka hore cuntada caadi ma karin jirin miya cuntada waa mararka qaar xitaa cusbo kumaana dari jirin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونك سلع بكون ولا cuntada cusbo xitaa kuma dari jirin mararka qaar markaasaa wuxuu igu dhahay cuntada sun inaa kusoo dartay soo lagama yaabo markaasaan ku dhahay cuntada haddaan sun kusoo daray anaab kula cunaayo oo kula fadhiyo naceebkayga xeerkaas dhan ma gaarsinaan ku dhahay wixii dhacay waa dhaceen haddana waxaan qaatay inaan sidii nin inaagtiisa aan isku noqono oo niyadda aan isku furno aan is cafino aan nolosheena oo quruxda badan hore aan u wadano lagugu dhufay oo goor u gaastiri qaaday uu laabdilaac qaaday ood cunto ku dishay saliid marna ku dartay marna bilaa milixa lagugu dhufay markaasuu igu dhahay run way kaa tahay mise waa igu ciyaaraysaa runa iga tahay wixii dhacay waa dhaceen anigana waxbaa kugu sameeyey adna waxbaa igu samaysay waxaas dhan waxaan rabaa inaan xag iska dhigno maanta baal cusub oo cad oo wax qurux badan aan ku bilowno markaasuu igu dhahay okay cuntadii aan soo guray cuntadii anaa bilaabay oo cunay markuu arkay inaan cunaayo u cunay horta ninkii isaga xitaa aad buu iiga shakisnaa sheekada meeshay ka bilaabatay habeenkii si qurux badan baan u wada casheynay oo u wada seexanay subaxdii sidoo kale 2 isbuuc 1 bil ayaan waxaan ku waday isla sidii guriga markuu soo galo maxaa samayn jirtay guriga markuu soo galay guri carfaayo oo qurux badan oo cunto diyaar aniga oo diyaar oo albaabka hortiisa aan ka hor imaanayo kadib marka ka hor timaadina kadib markaan ka hor imaado laabtaan saari jiray anoo isdhahayo maxaa u dhiman weyse balaayiga ugu dhacday oo laabtan aad saaraysa waa been baasha
waa been iyo qasab, nafta waa la qasbaya. dhunkasho qasaba dhunkasho qasab ah. haye waxaa dhacday ninkii markaan hal bil sidii aan ku waday. gabadhan fariidam soo doqon ninkeediyo dhunkasho qasaba been balaayo. haye ninkii hal bil markii aan sidii ku wada joognay oo wax walbo sheekadii sidii ay noqotay, ninkan wuxuu arkay waxaan inay run iga yihiin oo waa isa soo daadiyey. haye hadda adkaanaysaa marka. wuxuu igu dhahay runtii waa ka xumahay wixii aan kugu sameeyey, xanaaqaan kuu qabay, xanaaq darteeda iga keenay, wixii aan kugu sameeyey dhan waa kaa raali gelinayaa maanta laga bilaabo. runtii aad baa ii soo jiidatay, aad baa u qurux badan tahay, aad baan kugu jeclaaday. mar walba banaanka markaan tago waxaan soo xasuustaa waxa ay ii sameyn jirtay baryahan lasoo dhaafay, qaabkaa u ekeed, qaabkaa ila dhaqmi jirtay, runta marwo qurux badanaa ahayd. marka waxaas dhan waxaa rabaa inaan sidii aad adiga sheegtay anna ninka ka ugu wanaagsan inaan ku noqdo oo waxaa doontid aan ku siiyo ayaan rabaa. berin inaan ku wado oo meesha dahabka ku geeyo oo dahab kuu soo gadaan rabaa. ninkii uu soo fiicnaaday adiguna jabbaad la maagantaha. jab baan la maaganaa. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. haye ninkii markuu saas ugu dhahay anigii waxaan ku dhahay waa mahadsan tahay, ani horaan kuugu sheegay, hadda waa normala iska noqday, waxaan rabaa nolosheena inaan hore usii wadano ee ogow. subaxdii waa la i waday meesha dahabkuu i geeyey, sad dahabuu iisoo iibiyey, gurigeygaan kusoo laabtay isla sidii nolosheena sidii aan ugu jirnay. ilaahay amarkiisa uuraan qaaday. weli markaa inaad khiyaamaysada rabtaa markaa weli haa saasaan rabaa. weli niyadeyda waxaa ku jirto inaan qiyaamo oo ninkan jab weyn aan u geysto. ma ninka dahabka kuu soo iibiyey ee ninkaagiya ee jiidda hore si fiican kuu geeyey ee dhar cadda kuu soo daray aad weli jab la maagantaha. haa uur baan qaaday. uur markaan qaaday aan ogaaday runtii waan ka naxay oo ma rabin inaan uur yeesho. oo maxaad rabtay markaa? inaan uur yeelin inaan rabin ninkan ani asaga waxbana dhex marin oo waxba isku keena darsamin. kadib ninkii wuxuu igu dhahay maadaama meel soomaali ka mid oo xoogaa yar ayaan deganeen, marka wuxuu igu dhahay waxaan rabaa caasimad inaan u gurno, meesha shaqadeeda loo wareejiyey ee waxaan rabaa caasimad inaan aadno. markaasaan ku dhahay maadaama shaqadaada meesha loo wareejiyey anigana xaamilo hadda aan ahay, waxaan rabaa inaan hooyaday lasii joogo meeshaan aan ku dhalo, marka aan cunugeyga xoogaa ii roonaado haddaan meesha kuugu imaado saa u aragtaa. ninkii wuu igu raacayoo muqdisho aaday, asagii aniga meeshiiyaan ku haray. aniga guriga hooyadayaan tagay, meeshiiyaan ku umulay. markaa umulay cunugeyga xoogaa 2 bilood markuu gaaray ninkii wuxuu igu bilaabay inaa soo baxdaa, guri baan idin diyaariyey, adii beebiga yar imaada. aniga marka waxaa sameeyey ninkan lacagtii oo dahabkii uu iibinaya suuqa geeyey, waa soo iibiyey, lacag baan ka dhigtay kaash, wax yar aruursaday, wixii dhanaa isku soo dardartay. cunugii waxaan ku dhahay hooyo waxaan rabaa cunugan inaa ii haysid, ani waxaan rabaa inaan muqdisho aado, ninkaasoo gurigeena iyo waxeena aan soo hagaagsano kadibna aan usoo laabto cunugan. hooyaday waxay igu dhahday cunuga waa yar yahay oo 3 bilood ayuu hadda galay, see uga tagaysaa? naas ma siinaysid? naas ma siinaya, caanihiisa la siiyo, waan usoo laabana. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. cunugaagiyo 3 bilood jira ka tegaysaa? 3 bilooduu jira haa. ma ka tegi lahayn cunugiina 3 bilood jira oo naaskii hooyadii u baahan oo aad dhashay aduu ifa keentay? cunugii hooyaday baan dhabta usoo saarayoo waa kasoo tagay. waa mahadsantahay jago. markaan kasoo tagay waxaa imaaday muqdisho, laakiin muqdisho markaa imaaday ninkii umaana teginoo waxaan soo raacayba baabuur aado ilaa iyo beledweyne si toos u aadaan soo raacay.
ninkii xitaa sii dhaaftay ninka inaan sii dhaafaa barabaaba waa ninkii dhahay gurigaan kuu diyaariyo guri baan diyaariyey soo imaada adiga iyo cunugaba inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun bal cunug gaari muxuu galabsada anigii waan soo baxayoo beledweynaan ka dhacay oo beledweynaan baawar ka sii raacay boosaasaan ka dhacay boosaasaan tagay oo boosaaso markaan tagay guri baan shaqaale ka noqday gurigiiaan ka bilaabay inaan ka shaqeeyo oo warkayga lawaa oo taleefon ma qaadanin oo hadda lambar ma lahan oo meel igala soo xiriirayo ma lahan oo hooyadeyda lama xiriirin oo ninkii lama xiriirin oo gabadhii intee ka baxday ma dhulkaa laqay mase irkaa laqaa ka dhacday meel la igu tiriyo ayaa la waayay anigii boosaasaan bilaabay inaan ka shaqeeyo gurigaan ka shaqeyn jiray guriga waxaan ka shaqeeya guriga markii dambe waa isku soo dhacnay waa kasoo tagay meel maqaayad oo maqaayadan tagay maqaayadiiaan bilaabay inaan ka shaqeeyo maqaayadiiba ilmahayga lama hadlo oo hooyadeeda lama hadlo oo ninka lama hadlo qofna lama aan hadlin oo meeshaan jiro xitaa lama ogo inaan dhintay inaan noolahay go-aankan gabadhaas ma ku saxsantahay mise ku khaldantahay way ku saxsantahay oo oohinta way ku khaldantahay oo qosolka ilmaheedii inay ka tagto reerkoodii inay jarto way ku saxsantahay oo oohinta way ku khaldantahay oo qosolka ilmahaaga inaad jartid waa ku saxsan tahay waa oohinta ilmaha ma ka tegaysaan hore dumarka dhan waxay taabteen ilmaha waa ka tegaynaa meeshana joogitaan ma lee ku soco acuudu billah waana boobtay anigii meeshii aan ka dhacayoo beledweynihiisa boosaasaan ka shaqayn jirayoo maqaayad meelaan tagay maqaayadii markaan tagay maqaayadaan ka shaqayn jiray maqaayadii baa noo kala kacday oo anigio 2 gabdhood kale ayaan ahayn maqaayadii maasha allah oo noqotayoo kaal iskaarig meeshaan ka shaqays bilaaway saan u shaqaynayay maqaayadaaba aniga naftirkeyga aan ka samaystay oo yiriis ilmihiina intuu jiraa markaa ilmaha iyo hooyadayda iyo maya sanad ma gaari ka yari sanad waa dhaafay oo sanad ibar waay markaan ku soco shaaqiyad fiican ku soco saan u shaqaynaya maqaayad yaraan samaystay oo aniga leeyahay markii dambe maqaayadeydan ka shaqaysan jiray oo maqaayadiiaba ii kala kacday oo xoogaa waxbaan helayo marka waxaan go-aansaday inaan hooyaday la hadlo hadda markaas cunugeyga wuxuu jiraa 2 sano 2 sano kadib baad rabtaa inaad cunugaaga la hadasho 2 sano kadib baan go-aansaday cunuga inaan la hadlo iyo hooyadeydaba hooyadeyda markaan wacay aan la hadlay runtii way ooysay xitaa way ila hadli weysay umaana malaynaynin xitaa inay nooshahay hooyadaa maxaa saa u gasha hooyadaa macaan oo nolol iyo geeri aan kugu ogeyn hooyada iyo dadkaygaba cadaawad ayaanba u qaadayoo meeshaan ayagaa i dhigayoo ninkan hoostooda igeey hooyadaabaad cadaawad u haysaaba markaan soo xasuusta waxaan is dhahaa ayaga kumaana dhalin miyaa waay waxaan kuugu sameeyay 2 sano kadib hooyaday markaan wacay hooyadii waa ooysay waxay igu dhahday inaan nooshahay marna maana soo dhiganin laakiin waxaan islahaa marle haddaa arki lahayd xitaa meedkeeda waa ku qanci lahayd meedkeeda xitaa haddaa arki lahayd waa ku qanci lahayd aniga hooyadii aan la hadlay waxaan ku dhahay hooy waa noolahay aniga runtii dhibaato badanaan soo maray ninkaasna dhib badan oo ii geystay mana rabin noloshayda kale inaan kusii khasaariyo oo agtiisa lasii joogo haddana meeshaasaan joogaa meeshaasaan ka shaqaystaa hadda wixii ka dambeeyana waxaan rabaa inaan mar walba idinla soo hadlo waxaad doontiin aan idin soo diro ninkana aa iga soo furtiin ayaan rabaa ani marka meesha markaan joogo dadka waxaan ugu sheekeeyaa waa garoobaan ahayoo nin ima qabo meeshaad joogtid waxaad tirahdaa garoob bana la ima qabo garoob baan ahayoo la ima qabaan ku dhahaa oo nimanka safayb iigu jiraana waxaan ku dhahay nin walba wuxuu rabaa inuu ila hadlo lagumana furina ogow laima furinaa
markaan waxaan isdhahay mid lacag lahoo fiicanaa arkayoo waxaan isdhahay ninkan wax ku darsatide ninkaas waa inaad iska soo furta. أعوذ بالله من الشيطان ما صاحب أم سواق قلد وحاس يضل وقوينا ترى لي ما قبل تذكر هالمر شيء ومهد عليا قبلها ينوش كينا يا قفتي وصود رايا thank you شيء سمرتك هذا رجال thank you شيء فلو قرينا ما ده تدري شيء كينا بقولك يكون قارسية ده شيء ونا فلو نكو كشرفع تذكر قبلها ينوش كينا يا ومهد علينا يا قفتي وصود رايا thank you قصة هيا فلو ده أنا حتى فلو عن ده فلو ده دمانتين marka hooyadeen la hadlo waxaan ku dhahay ninkaas inaa iga soo furtiin ayaan rabaa markii horan idinkaa qoorta ii geliyey haddana iga soo fura. ninkii lala hadlay oo waxay igu dhahday hooyaday ani nin makaa furi kariye adiga lee la hadal oo iska soo fur markii horeba adaa meesha tagay oo adiga lee haddana iska soo fur. ani waxaan dhahay ninkaas ma rabi inaan la hadlo mana rabi inaan mar dambe hadalkiisa ama wejigiisa aan arko waxaan rabaa inaa iga soo furtiin. markii dambe walaalkay mid iga weyn aan la hadlay oo waxaan ku dhahay dhibkaasaan ku qabay ninkaas dhibkaasaan meesha uga cararay haddaa rabtiin noloshayda haddaa rabtiin farxadayda waxaan rabaa ninkaas inaa iga soo furtid. tuu igu dhahay anaa la hadlaayo oo kaa soo furaayo niidaada deji meeshaada iskaga shaqayso anaa la hadlaayo ninka wuxuu qaba ayaan ogaan doonaa isagana. meeshaasayna joogtaa waxayna dhahday meesha noloshaas kuma faraxsani waxaan rabaa ninkaas inuu isoo furo iska fasaxa lalahay gabadhaas. markaasuu dhahay waa noo shaayaa inaan furo habarteeday ka tahay kan fure. waxaa lalahay gabadhaas kuma rabto oo haddayse ku rabin inaa fasaxdida qurux badan iska fasax. markaasuu dhahay hadday rabto inaan fasaxo waa ina iga gadataa furiinka waa ina iga gadataa. furiinka waa ina gadataa buudi furiinka waa ina iga gadataa. hay dalqad kasta waxaan kaga iibinaa 3,000 hadday isiiso oo dollar waan furaya. acuudu billah dalqadaada ma iibsan lahaydin ha iyo maya ma iibsan lahaydin haye waa ninkii aad ilmaha inanta u dhashay haa haye anigii waa la ii sheegay waxaa laygu dhahay 3,000 haddaa haysid ninkii waa lagaa soo furaya haddaa hayninna naagtiisa tahayoo ninkaaga u imaa. haye waan iibsan lahaa waa badan bee waan iibsan lahaa waa qosolka ma iibsadeen waa oohinta dalqada waa iibsan lahaa waa qosolka ma iibsan lahayd lacag mani haye oo habluga shoo iibsanayaan dalaaqdooda raga waad aragtaan ka iibiya lacag ha laga dhigo maanta halkii meher adiga lagaa dooni lahaa iyada ka iibi oo iibsanayaan be haye waxaan ku dhahay 3,000 anaa soo diraayo oo haliga soo furo le. anigi ninkii xoogaa lacag haysta kee aan kuu sheegayo aan babartayba kaasaan waxaan ku dhahay may rabtaa haa lacagtaasaan u baahanaa isiinio aniga hadda lacagtaas ma haye lacagtaasaan u baahanaa. ninkii ayadoo ordaysa ani 3,000 aan weydiistay 3,500 aaba la ii keenay. ninkii waa iibinaya dalqadii dalqad inaan ku iibsanayo maanaab u sheegay inaa u baahantay bas u sheegta. haa waxaan ku dhahay hooyaday xanuunsan oo barbaleen baa dhinacaas iga haysto lacagtaas baan u baahnaa haddaa isiisid abaal baan kuu hayn lahaa haddaa rabtid xitaa deen iiga dhigo gadaal baan kaa siinaya. iyadoo moo bixinaysa waa nin ka qaad oo nin u geey daanyeer ka qaad daanyeer kale u geey. la wiilasha wax bixinaya daanyeer in la dhaa ma jecli aniga waa ereygaas erey xun aad iyo aad ku soco. markaasaa wiilkii uu ii keenay 3,000 aan weydiistay 3,500 uu ii keenay waaba nin reer magaal dhaafay. 3,000 aan dhiibay oo ninkii sidii laiga soo furay. ninkii markii laiga soo furay meeshayda garoobnimadeyda hadday run tahay marka meeshiyaan iskaga shaqaystaa oo hooshayda siday u socotaa. hal sano kale markay kasoo wareegtay ninkan markuu isoo furay ayaa ninkii kale aan kuu sheegay hadda 3,000 aan ka qaatay aan guursaday.
ninkii aan guursaday ninkii markaan guursaday anigoo la joogo 2 bilood oo keliya ayaan waxaa ogaaday ninka aan guursaday 2 naag inuu qabo. acuudu billah marka hore waxa ma qabo kuuri waxba ma qabo oo waxaan ahay doob isku tuntay oo meeshaan joogo oo 5 sanaba aan guursanin. hal mar aan soo guursaday 2 baby ay ii dhashay kadibna naag maba guursaninba. 5 sana laga joogaa oo iiga sheekay. waa naag nin xalay naagtiisa ka soo cagkay. hay marka habeen kasta ma kula joogaa marka isagu habeenkaas intuu ila jooga marka waan soo degaayo marka waan soo raraa uu ilaahay oo waqti dambe uu ii imaadaa mararka qaarna waqti hore uu ii imaadaa mar wuxuu ilaahay galanka horaan waxaan leeyahay shaqo marna wuxuu ilaahay galanka dambe waxaan leeyahay shaqo wala ibla itla adkaata hay ani laakiin tii lacag la dhahay uu igu farqaa oo waa igu shubaa lacag hadaad aragto iimaysataa markaa lacag haddaan arko waxaan isleeyahay galanka dambe iyo galanka horeba hadduu shaqaynayo waaba nin noolo ha soo shaqaysto. marka dumarku waa sidaas lacag hadday arkaan khalaas wey iska gurgurso xitaa hinaasi ma jiro lacagey macaaney haye aniga taladii ay igu caddaatay oo ninkii hadda la guursaday 2 bilood anoo qaba waxaan ku dhahay faraqaan ku dhigay waxaan ku dhahay saqjaan baa tahay been waa ii sheegtay hadda i fur markaas wuu igu dhahay aniga waan ku jeclaa oo zaid baan ku jeclaaday oo saas darteeda been kuugu sheegay haddana waxaa rabtid haddaa rabtid dabaqaan ku dhisaa haddaa rabtid koraan ku saara haddaa rabtid waxaa rabtida iga helaysaa naagahaas iska dhaaf adaa qalbigayga ku qoran. marka waxaan ku dhahay nin 2 naag qabo ma rabo biliis aan biliis markii horena khiyaano ayaa igu guursatay haddana waxaan rabaa hadda inaa i furtid haddii kale maxkamada isla tagaynaa ani adig yeah maxkamada isla tagaynaa oo naagahaadan guryahooda ugu tagi doonaa waa ogahay labadoodaba waa soo arkay meeshaas iyo meeshaasay kala degan yihiin waa u sheegay show naagaha labadaba waa ka qariyaa oo asaga maba ogaba dad inuu ani i guursaday ilaahay baa ku dhaariyay ninka haddaad guursato ood ogaato in 2 dumar leeyahay maska furleed musaasi haysanay ma furleed musaasi haysanay soo sheega ninkii intaan nabsiyaan ku dhagay waxaan ku dhahay intana ma u socday ilaa aad iga furto maqaayad laamiga dhaxdiisa ninkii meeshuu igu furay asagana uu ku dhaqaajiyay wadada dhexdeeda ku dhigtay laamiga meesha maqaayadu igu imaaday meeshaan kalarka ugu qabsaday adu furiin bay kaaga dhigtay markaa furiin bay iga dhigtay hay aniga meeshaan shaqadayda ka watay wax badan baa shaqeeyo nimanka dhanba waa nacay markaan nin madkii hore ninaasaan ii galay markii dambena kanaasaan ii galay marka waxaan isdhahay labadan hadday saan kuu galeen kuwan kalena waa lamida nin oo dhan iska dhaaf oo shaqayso meeshaan shaqa ka bilaabay anigoo sidii u shaqaysanayo oo ninkii markaa iska furay haddana waxaa kasoo wareegtay 2 sano kadib waxaan aaday gurigii hooyadeyda inaan hooyadeyda iyo cunugeyga aan soo fiiriyo cunugeyga markaas wuxuu jiraa 5 sano 3 bilood jiro ayaan ka tagay 5 sano cunugaagii hooyada aan arkin ha gabadha masan bacad baan soo firay 5 sano cunugeedii isagoo 3 bilood jira ka tagta ma hooya oo san bacad wey cunugeygaan u tagayoo hooyadeydaan u tagay meeshii markii aan u tagay maasha allah waa iska faraxnayo alxamdulilah 2 maalin anigoo joogo gurigii waxaaba imaadayba wiil walaalkeyga u imaadayoo qorax dhacaysaa u malaysay suu u qurux badan yahay qoortiisa dheero yaa jalaqsan yaa wiil casoo qoortiisa dheeroo jalaqsanaaba walaalkeyga u imaadayoo guriga imaaday oo hablaha la odhan jiray waa qalanjo raggiina ma qalanjo la wiilashana qalanjo way noqdaan jalaqsan wuu noqdaa kaas waa qolihii wax male waa kuwii kale waxaan islaa ragga waxaan islaa qurxiyo waxa lagu meegaa waad noo fiirsataan miya nin qalanjo baad aragtay dheer haa qoor dheer oo caso oo af madooba waxaan ku dhahay yaa isoo fiiriba ku dhahay hindhaha markaan qac ku siiba qalbigaaba qac i dhahayba aniga
وصدي رجع بك عبسنا قرمي إمام كاسد عدنا gabadhii ragga ka cabsanaysay oo nacaybka u qabtay hindhaha markay saartay wiilkan wadnaheeda waaba kala furmay sida in furo lagu rogay حدود ولا استاد xuduudii baan istaagay oo waaba ka gudbi rabaa وكو صورانتي وحي markuu baxay xitaa wuu iisa sawiran yahay markaasaa markuu baxay saan u baxay walaalkaygaan weydiiyo walaalkeena wuu iskeenbaray wuxuu dhahay gabadhan waa walaasheeda hadda imaaday meeshaasay degan tahay oo ka shaqaysaa wiilkan hebelaa la lahaa wuxuu ka imaaday wadamadan oo qurbaha nacasta oo wax kusoo bartay Kenya ka imaaday oo wax kasoo bartay ما ولا كان نكي ويديسي حسن قلنشو ها waa weydiiyey markaas waaba liskeenbaray waxa wallahi gabadhan walaashay meeshaas ka socota wiilkan meeshaas uu ka imaaday hebelaa la lahaa barasho wanaagsan markuu asaga baxay marka waxaan weydiiyey wiilkan tuu degan yahay intuu ka imaaday naag ma leeyahay hore ma usoo guursaday information baa bilaabay inaan raadiyo walaalkay wuxuu igu dhahay ninkan waa wiil saas u weyn ma ahan oo hadda waxbarasho soo dhameeyey mustaqbal iyo guur iyo weli maba galin oo hadda luu socdaa ani markay saas lay dhahay wiilkii waxaan ku fikiray inaan dhinaciis aan isku tijaabiyo maalintii labaad baan ku dhahay wiilkaas Kenya muu deganaahaa Kenyadan rabaa inaan wax ka wareysto oo ganacsi wax ka sameeyo oo waxaa rabaa lambarkiis inaa isiisid oo igu xirtid حسن قلنشو haa faadimaan ka xadaynaya muuse qalanjo waxaan ku dhahay Kenya waa rabaa arrin inaan ka wareysto maadaama asaga Kenya uu ka imaaday waxaan rabaa inaa igu xirtid oo lambarkiis isiisid waa ku siinayaa waa lambarkiisa nabla igu siinin kan aniga waxaa iska dhigay qof Kenya danaynayo oo shaqo rabo inuu ka furto ninkii baan wacay waxaan ku dhahay ma fiican tahay hebel walaashiisa waa mii xasuusataa haa see lagu ilaabi karaa waxaan ku dhahay Kenya rabaa inaan wax ka furo marka waxaa rabaa inaan assalaamu calaykum dhammaantiin walaalaha Soomaaliyeed dhammaan dadka hamiga sare leh ee horumarka jecel waxaan jecelahay inaan la wadaago fursad ganacsi oo ay ka faa'iideysan karaan gaar ahaan dadka dhaqaale aad u yar haysta ma doonaysaa adigoo gurigaaga jooga inaad iibiso badeecooyinka shirkadda afraad ee ugu weyn waddankaasi Mareykanka ma tahay shaqaale laga rabo masruuf kira guri fii waxbarasho iyo qarashaad kale oo warwar iyo dhibaato kugu haya fadlan shaqo ka bilow kambanigan oo la shaqee kambaniga afraad ee ugu weyn waddankaasi Mareykanka iibi badeecooyinka shirkaddani soo saarto maanajarada guud ee shirkaddan u qaabilsan qoomiyadda Soomaalida ayaa fudaydisay in kambanigan ay ka shaqeeyaan Soomaalida qurbaha iyo kuwa dalkoodii hooyo jooga manager Sacdiye Xirsi ayaa sanadkan 6 bilood ee soo socda u qoondaysay inay si toos ah u diiwaan geliso oo uga shaqeeyaan kambanigan cadad gaaraya 600 oo qof oo ku biiri doona shaqaalihii sanadkii hore ay diiwaan gelisay manageradu haddaba daawade sidee uga shaqo bilaabaysaa kambanigan kow marka hore waa inay kaa go'an tahay inaad shaqo tag tahay waa inaad tababarada ay manageradu kuu qabanayso xilligeeda aad uga qayb gasho si laguu baro qaabka aad u shaqayn lahayd waana inaad tahay qof sumcad iyo maamuus ku dhex leh bulshadiisa iibina kara productyada iyo badeecooyinka shirkaddani soo saarto waana inaad qaadato talooyinka iyo macluumaadka ama sharciyada shirkaddani Sacdiye Xirsi ah hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka ahna managerada u qaabilsan qaybta Soomaalida ayaa kaa caawin doonta wixii macluumaad ah iyadoo afkaaga hooyo kugu baraysa kuna tusinaysa sidaad u shaqayn lahayd waana Sacdiyo oo kugu xidhaysa tiim kula shaqeeya oo kula wada shaqada kuwaasad aad isku goob joogtaan ama aad kala wadan joogtaan ama kala magaalo intaba haddaba daawade si aad u hesho macluumaad dheeraad ah fadlan wac nambarkan WhatsApp ee shashada kugu qoran adigoo marka hore fariin cod ama qoraal ah u diraya managerada oo uga warbixisay bulshada Soomaalida qaabka u shaqeynayaan iyo sida u diiwaan gelinayso iyo waliba waxyaabaha ay ku gacan qabanayso waa tan managerada oo fariin cod ah u soo dirtay qaybta warqabadka Helix Media
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شرفت له صوماليات ميل بو أتكو سجنتهين وولاشين سعدي حرسي أو إذن دهيسا كل نولادا نبتقليو يعافيمات انتبا بعد السلام waxaan maanta rabaa inaan isla eegno fursad ganacsi oo aniga ii anfacday adigana ku anfici doonta walaalo badan oo Soomaaliyeedna noloshoodii wax badan ka bedeshay oo aniga aan ka mid ahay intayna horta u guda gelin fursadda ganacsi waxaan rabaa inaan isla eegno waxaa jira dad badan oo jecel in ay business bilaabaan qaarkoodna ayba bilaabeen business qaybta bilowday businesska waxa laga yaabaa businesskooda inay ku guuleysan waayeen waxaan dhihi karaa laba siyaabo ayaa ka mid ah siyaabahay ugu guuleysan waayeen kow waxa ka mid ah in ay meesha ay ka fureen aan ahayn meel ku habboon businesska midda labaad oo ah alaabta iyo waxyaabaha ay iibinayaan aan ahayn waxyaabo suuqa iyo cid walba u baahan tahay oo suuqa leh waxyaabo aan suuqa ku soconaynin ayaa laga yaabaa oo qof walba aan u baahnayn ayaa dhici karta inuu ahaa waxa kale oo laga yaabaa walaalo badan oo Soomaaliyeed oo jecel inay shaqaystaan oo business furtaan laakiin haddana cabsi ku jirto laga yaabo inay isleeyihiin oo ka cabsanayaan lacagta ay ku bilaabi doonaan investment inay geliyaan business lacag badan inay ku furaan taasoo keeni karta inay dib oga dhigtaan businesska ay bilaabi lahaayeen haddaba aniga Saacadiye Xirsi ah oo maanta adiga kula hadlaya waxaan ku hayaa business ka duwan waxyaabahaas oo dhan business aan kaaga baahnayn inaad lacag badan investment geliso oo lacag badan ku bilowdo business aan kaaga baahnayn inaad meel u furto oo meel intaad u furto aad qarash isgeliso business aan kaaga baahnayn inaad waqti badan geliso businesskan aan hadda aniga ku hayo oo ku soo bandhigayo waqti badan kaagama baahno waxaad ka shaqaysan kartaa businesskan adigoo shaqadaada haysto waxaad ka shaqaysan kartaa businesskan adigoo gurigaaga iyo familkaaga la jooga oo gurigaaga jooga waxaad ka shaqaysan kartaa businesskan aan ku soo bandhigayo adigoo waxbarashadaadii wata oo arday ah oo waxbarashadaadii ku jira haddaba faahfaahin intaa dheeraad ah haddii aad u baahan tahay faahfaahin intaa ka dheeraad haddaa u baahan tahay businesska sida looga faa'iideysto waxyaabaha aad ka heli doonto sida oga ganacsan karto intaan warbixin ka dheeraada si aad u hesho fadlan igala soo xiriir telefoonka shaashada ku qoran ama ku soo dhufo linkiga description-ka yaala haddii Ilaahay idinka ka dhigo waxaa idin leeyahay see you